tihiin idilkiinba meel walba aad naga daawanaysaan halkan waa Home Cable TV maanta waxaan soo booqanay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota gaar ahaan guriga uu degan yahay Dalmar yare Dalmar horta aad maasan tahay in aan marti kugu ahay gurigaaga xilli lagu jiro sabti iyo axad oo maalmihi fasaxaaga ah oo halkan aad adiga iyo akhyaar badan aad ballaarsateen baashaal badan balse waxaan jecelahay xaalado jira oo maalmahan dambe soo baxay daraadood in aan su'aalo yar oo dhowr aan kaaga waraysto su'aasha ugu horeysan dabran ku weydiinaya waxa weeyaan waxaad soo saartay hees inta badan dadku ay ugu tala galeen ama ay u micnaysteen ba inay jawaab u tahay hees ka horeysay oo maalmo yaroon ka hor soo baxday oo kooxdii waayaha cusub ee kamid ahayd ay ku luuqeynayeen heestaas oo loo fasirtay inay ahayd mid siyaasadaysan ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa horta adigu haatan kamid miyaa tahay kooxdii aan kugu naqaanay ee fankaaga aad ka bilowday ee waayaha cusub ugu horreyn horta walaalka Irshaad soo dhawow guriga ku soo dhaw aad baan idinku soo dhaweynaya adiga teamkaagaba anigana waan ku dhawahay Home Cable haddaan su'aashaada jawaabteeda u galo horta dadku waxyaabaha isla dhaxmarayaan horta waxa ka horeysa marunba mise waa been inaan u jawaabay kooxda waayaha cusub ama heesteeda hees ku horeysa inaan u jawaabay arrintaas waxba kama jiraan anigu uma jawaabin kooxda waayaha cusub iyo heestii ay soo saareen laakiin waxaan soo saaray heesaan anigu kaga hadlay dareenkayga iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan waxa isku soo aadaa laga yaabaa waqtiyada ay labada hees soo baxeen laakiin heesteedu hees wax jawaaba ma ahan haddii kale haddaan usoo galo arrinta oo inaan ka baxay waayaha cusub iyo in kale waayaha cusub waa koox aan wada shaqaynaynay in ka badan 15 sano waqti badan oo aad wanaagsan aan soo qaadanay wanaag badan iyo walaaltinimo badan dhex martay bulshada Soomaaliyeed waqti waliba aad iyo aad xaaladooda u adag tahay aan la qaybsanay dhibaatooyinkoodii